agaasimaha TV-ga Somsad ee Yurub Fuad Ahmed oo booqasho ku maray magaalada Laascaanood ayaa maanta booqasho ku tagay dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Laascaanood ee Cabdi Bile Cabdi isagoo halkaas agaasimuhu kula kulmay qaar ka mid ah ciyaaryahanada garoonkaas ku ciyaara iyo sidoo kale maayarka degmada Laascaanood Cabdiqaadir Jaamac Saalax isagoo agaasimuhu halkaas warbixino ku saabsan baahiyaha sportis ee deegaanka kaga dhageystay maayarka iyo ciyaaryahanadii garoonka ku sugnaa markaasi ugu horeyn maayarka degmada Laascaanood Cabdiqaadir Jaamac Saalax oo TV-ga Somsad la hadlay ayaa ka warbixiyay dhismaha garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bile Cabdi halka uu marayo haatan halkan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa agaasimaha TV-ga Somsad ee Yurub mudane Fuad runaantii Fuad waa ninka dhalinyarada ah ee runaantii agaasimaha Somsad ah waxa uu soo booqday garoonka iyo magaalada Laascaanood runaantii inuu aad u fiiriyo waxqabadka iyo runaantii meelaha waxqabadka uga baahan iyo dhalinyarada sportiga waxay u baahan yihiin iyo meelaha aad iyo aad ku baahan dayactirka uga baahan yahay macnaha laga qabto Fuad waa ninka dhalinyarada qurba joogta runaantii maanta inuu yimi garoonkeeni runaantii isagoo direysna inoo wada insha Allah waxaan rajaynayaa isagoo wax kale inoo wado oo runaantii horumar kale balaaran inoo wada inuu yimaado waxaan leeyahay qurba joogta warde dadku isku wada mid maahe warqof walba sida ninkaas soo xilqaamay oo dadkiisa deegaankiisa uu wax ugu qabanayo qof walba uu kaalay oo wax ka qabo oo baahida dhabta Laascaanood jirta ogow si aad uga qabataan aad iyo aad buu mahadsan Fuad wabillahi tawfiiq agaasimaha TV-ga Somsad ee Yurub Fuad Ahmed ayaa isaguna gudaha dhismaha garoonka kula hadlay TV-ga بسم الله الرحمن الرحيم دمان ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhalinyarada gobolka Sool khaasatan kuwa gudaha jooga oo runtii aan ka dareemay kana arkay inay sportiga aad u xiiseynayaan aadna u jecel yihiin garoonkan maanta ku suganahay waa garoonka Cabdi Bile Cabdi weligeed qof walba reer Laascaanood uu ku ciyaari jiray runtii waqtigii Olombikadu ay ka dhacay magaalada London ayaan Olombikooda Soomaaliya iyo kuwa Djibouti oo Cabdi Bile ku jiro aan ku casuunay magaalada Manchester waxaan filayaa kulankii maalinta aanu la qaadanay aanu kaga wada hadalnay garoonka inuu Cabdi Bile xasuusan yahay dadkii meesha joogayna ay xasuusan yihiin aanu kaga hadlanay wax qabadka garoonkan oo runtii hadda bilow fiican laga sameeyo waad u jeedaan oo kolley waa la bilaabay garoonkii balse ma dhama wuxuu u baahan yahay in kale in la qabto maalintaas Cabdi Bile waxa uu runtii yiri diyaar buu ahaa inuu garoonka wax ka qabto balse waxa uu cuntami weeday ayuu yiri goobta garoonka oo aad u yar dadkii oo ku soo durkay dhulkii oo la kala qaatay waxaan filayaa tii indhahaygan maanta ku arkay oo garoonka marka albaabka laga baxaba dad baaba leh oo waxa loo baahan yahay hadda dhibaatada ugu badan aan u jeedaa kolley waxa weeye garoonkii waa la taagay laakiin albaabkii xitaa laga soo galayay garoonku dad baa leh oo albaabkiiba dad baa dhistay marka taas waxa loo baahan dhulkaas ballaaran in loo gado dhulkii parkinka noqon lahaa dhulkii basketka noqon lahaa dadka dhulkaas ku hareeraysan loo dhan in laga gataa la doonaya taasina waxaan filayaa waxay u taalaa dadka u maqan gobolka magaalooyinka kale ee hadda aan soo maray Muqdisho aan soo maray Gaalkacyo soo maray Puntland Boosaaso Garowe Somaliland Hargeysa Boorame Berbera dhammaan waa soo maray deegaanadaas oo dhan waxaan filayaa meel walba aan marayay kullee dadka dhisay waxay ahaayeen dadkii goboladaas ka dhoofay qurbahana tagay tanse waxaad moodaa in dadkii ay ka qasantay siyaasadii iyo waxqabadkii wixii siyaasadii waa siyaasad wixii waxqabadina waa waxqabad magaalada Burco kale waxaan aad ugu amaanaa waxa weeye dadka dhisay waa dhalinyaradii aanu Ingiriiska wada joognay ee runtii gobolkooda ka tahriibay ayaa waxqabadka ugu badan ee sportiga qabtay anigu kolley Ingiriiskan jooga waxaan ogahay dhalinyarada gobolka halka joogta inay runtii sportiga meel fiican ay ka gaareen Mareykankana kolley waxa nagala jooga Cabdimudalib oo ragii aanu garoonkan aan magaranaysa iman jirnay ah oo runtii aan aad ugu farxay markaan ku arkay sanad walbana yimaada si uu wax uga qabto sportiga gobolka marka runtii ku dheeraan maayo waxaan leeyahay intaas meeyarka iyo dhalinyarada iyo macalinka gobolka iyo Cabdimudalib iyo dhammaan ay idin soo wada jeediyeen baan leeyahay agaasimaha oo ka tirsan jaaliyada sportiska ee magaalada Manchester ee carigaasi Ingiriiska ayaa ugu dambeyntii guddoonsiiyay qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee deegaanka qalab sportis oo ugu talagalay iyadoo ciyaaryahanadii guddoomiye ay uga mahad celiyeen qalabkan sportis TV-ga Somsad
السلام عليكم وحنو مهد علينا سومالي سيد ونقدونسينا قلب سبورتيس كدب دhallinyaradii sportska oo halkan jooga oo qalabka aan guddoonsiinayna hadda garoonka Cabdi Bila Cabdi ayaa isagu muddo dheer ahaa mid isagu markaasi qabiya oo aan lahayn dhisme markaasi stadium balse waqtigan ayuu si rasmi ah u bilowday iyadoo dadka deegaanka ee qurbaha ku nool looga baahan yahay in ay soo dhameystiraan inta harsan ee garoonkan Cabdi Ismaaciil Goox garoonka Cabdi Bila Cabdi magaalada Laascaanood